xiisadaha dagaal ee ka taagan wadanka Suudaan xabad joojinta ayaa la kordhiyay laakiin dagaaladu waa kuwo wali sii socda. Dhinacyada iska soo horjeeda militariga Suudaan ayaa ku heshiiyay inay dib u cusboonaysiiyaan xabad joojin 3 maalmood ah wax yar ka hor inta aysan dhicin kordhinta 72 saacadood oo kale. Tani waxay daba socotaa dadaalo diblomaasiyadeed oo sameeyeen wadamada deriska ah iyo sidoo kale Mareykanka, Ingiriiska iyo qaramada midoobay. balse waxaa jira warar sheegaya in dagaal culus oo wali ka socda caasimadda Khartoum. xabad joojintii hore ayaa fududeysay in kumanaan qof ay uga baxaan Suudaan si nabad ah halka dalalka caalamkuna ay daad gureeyeen muwaadiniintooda ku sugnaa Suudaan. ku dhawaad 2 toddobaad oo dagaal u dhaxeeya ciidamada militariga iska soo horjeeda waxaa ku dhintay 100 qof. xabad joojinta ayaa la filayay inay dhamaato saqda dhexe waqtiga maxalliga ah ee Suudaan 10 fiidnimo. horaantii fiidnimadii Khamiista ciidanka caadiga ah ee Suudaan waxay ogolaadeen in la kordhiyo xabad joojinta. sidoo kale kooxaha ka soo horjeeda RSF ayaa raacay saacado kadib. dhinaca kale wadanka koonfurta Suudaan ayaa soo bandhigay martigelinta wadahadalo loogu gorqaadayo kooxaha dirirtu ka dhaxayso inkastoo ay jireen colaado qaraar oo soo dhexmaray labada wadan kaasoo ugu dambeyntii sababay in 2011 ay koonfurta Suudaan noqoto wadan madax bannaan. xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Washington ay si firfircoon uga shaqeynayso sidii loo kordhin lahaa xabad joojinta isagoo intaas ku daray in xaaladda oo adkayd ay hoos u dhigeen rabshadaha ka socda wadanka Suudaan. laakiin afhayeenka aqalka cad ayaa goor dambe sheegtay in xaaladdu ay kasii dari karto daqiiqad kasta. jimcihii diyaarad militari oo laga leeyahay wadanka Turkiga guna-gunada jirtay daadgureyn ayaa la duqeeyay xilli ay ka degaysay garoon diyaaradeed ku baxsan magaalada Khartoum. ma jirto cid wax ku noqotay ciidamada RSF ee kasoo horjeeda militariga Suudaan ayaa beeneeyay in eedeymo ahaa inay ku lug leeyihiin duqeymahaas. dhanka kale RSF ayaa sheegtay in duqeymo daran militarigu ka wadaan goobaha ay ku sugan yihiin Khartoum. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda hore rayidka ahayd Maryam Al-Saadi Al-Mahdi ayaa BBC-da u sheegtay iyadoo ku sugan gurigeeda oo ku yaal Khartoum inkastoo xabad joojin la sameeyay haddana dadka rayidka ah waxay ku nool yihiin cabsi daran. waxay ugu yeereen xabad joojin laakiin tani shaqo kuma laha waxa dhacaya. duqeymaha diyaaraduhu geysanayaan waxay socdaan habeen iyo maalin. dagaalo ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa gobolka galbeedka Darfur iyo gobollo kale. ugu yaraan 512 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen inta ay socdeen dagaaladu. in ka badan 4200 qof ayaa ku dhaawacmay. sidoo kale tiro intaas ka badan ayay noqon kartaa dhimashadu. ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dadku u dhimanayaan sidoo kale xanuuno dilaacay iyo waayida adeegyada asaasiga ah ee nolosha.